ma dhibsataa timahaaga ama timaha gabdhahaaga oo qaybta hore ee timaha ma iska qabsadaan mase ka adag yihiin ma iska galaan aflaaqa ma leeyihiin ma ka qalalan yihiin yacni qaybta hore ee wejiga horeeta ah iyo qaybta ugu dambeysa ee timaha ah maanta waxaan idin la wadaagayaa wax dabiici ah taasoo ka dhigaya timaha mid jilicsan isku duba dhaca aan lahayn timo soo taagtaagan sida markii aniga aan u hagaajiyay gabdhahayga oo sawirkan hadda hortiina ka muuqdo ee qaybtan yar uga dhagan ayuu inoogu soo baxay insha Allah qaybta hore ee timaha hadii ay ka raaf ka tahay maanta ayaan idin la wadaagayaa wax ka bixinaya alaabtaas insha Allah alaab dabiici ah halda waxa hortiina ka muuqda ayaan rabnaa intaan ka subsana shantaas shay kuna soo dhawaada channelka Karin Qurxin hadii ay tamar kugu horeyso soo booqato Karin Qurxin subscribe insha Allah fadlan halkaas waxa igu jiro waa moringa oo buda ah halkaas waxaan ku haystaa star anise halkaas waxaan ku haystaa waa caleenteeni shaaha aan ka cabeynay waxaan kaleento haystaa xulbo oo miro ah waxaan kaleento haystaa olive oil intaas ayaan rabaa inaan isku soo darsado star anise-ka sidaas uu egyahay asigoo buda ah hadii heli karto asigoo miro ah hadii heli karto waa same moringaha asigan sidan ayuu egyahay asigana waxa waa caleenta moringaha oo la shiiday hadii caleentii fresh helaysid kaba sii wanaagsan caleenta shaaha iyo waxa waaye xilbada miraheeda hadana waxaan guda galeynaa bal sin aan isugu dardarsan lahayn bi'inillaahi alkariim marka hore digsi ayaan dabka soo saaray digsiga markii aan dabka soo saaray waxaan ku soo shubtaa hal koobka oo koobka shaaha lagu cabo oo biyo ah kadibna waxaan ku darayaa koob labaad waa 2 koob oo biyo ah 2 koob oo biyo ah markii aan ku daro dabka ayaan ku soo shidayaa markii aan dabka ku soo shido oo xoogaa yar biyaha ii soo qandacayaan ama ii soo kululaanayaan ama ii soo diiranayaan ayaan waxaan rabaa inaan ku daro marka hore star anise-ka xoogaa wuu yara adag yahay iyo waxaan kale marka hore inta ku hormarnaa star anise-ka iyo xulbada maadaama ay labadooda adag yihiin waxaan rabaa inay soo bislaadaan ee maasha Allah wixii ku jiray oo dhan aan ka baxsano ee ka baxo dhacaankii aan uga baahnayna star anise-ka markii aan ku shubay oo xulbadii aan ku shubay kadib waan ka tagayaa ilaa 10 daqiiqo kaleento 10 daqiiqo ayaan rabaa inaan ku kariyo oo ii karkaro oo ii soo falfalo dab yar oo gaaban ayaan ku karinayaa afa dab yar oo gaaban markii aan ku kariyo 10 daqiiqo kadib aan ku soo noqdo sidaas ayuu ku soo baxay bihi kalarkooda way iska bedeleen kadib waxaan bilaabayaa markii inaan ku daro alaabihii kaleeto marka hore waxaan ku darayaa moringa tea waa moringa powder moringihii ayaan ku darayaa oo budada ahaa waa 2 macalgo oo moringa ah iyo 2 macalgo oo caleenta shaaha mid alaale iyo midii haystid waa midii shaaha aan ka karsanaynay kadibna waa isku qasayaa marka horeento waxaan soo kariyay xulbadii iyo star anise-kii 10 daqiiqo ayaan dab gaaban ku kariyay kadibna markii aan ku daray moringihii iyo caleentiina kadibna 5 daqiiqo ayaan waxaan ku garnaa sidoo kale dab gaaban 5 daqiiqo kadibna waa arki doontaa sidoo inoogu soo baxay bi'inillaahi alkariim dab dheer lama rabo dab gaaban markii aan dab gaaban ku soo kariyay 5 daqiiqo kadib waa soo buriyay oo si fiican isku dhaxgalay caleentii wixii oo dhan moringihii ee isku dhax qasmeen sidan ayuu ku soo baxay kadibna waxaan ku daraa waaye oo noo dhiman alaabta hore aan ku soo arkayno olive oil saliid macsaro waa ku bedelan kartaa hadii aad haysatid saliid macsaradii olive oil-ku waxay ku fiican yihiin timaha ciyooma ka baxaan mana qalalaan yacni markii aad timaha lagu masaajeynayo kale ayaga ayaa ku fiican marka saliidii olive-ka ayaan waxaan ku darsanayaa sida hadda u jeedeen hal fur ayaan ku shubay waxay u dhigantaa hal macalgo furkii labaad ayaan ku shubay waxa u dhigmaa 2 macalgo furka kale ayaan ku shubay waxay isku noqonaysaa 3 macalgo ala fur oo furka ku xiran ah qiyaastiisa waxa waaye hal macalgo oo ah saliidii olive-ta ahayd saliid olive-ta markii aan ku daro marka dabkii ayaan ku qasanayaa marka waxaan rabaa olive-ta ayada karis uma baahno kuleylkaas oo kaliya ayaa ku aado kadibna dabkii ayaan ka daminayaa dabkii markii aan ka damiyo waxaan rabaa marka inuu si fiican isu kay dhaxgalo oo qaboobo markuu qaboobo ayaan rabnaa inaan dib aan u isticmaalno waana arki doontaan sida u isticmaalno madaxa lagu masaaj gareeyo hadii ay timahaada ay iska qabsanayeen ee afka hore iska qabsanay shanlada ay ku dhibayso kaleeto maanta way ku fududaanaysaa insha Allah mar dambe timahaada iska ma qabsan doona isbuuc mar ama 2 mar ayaad marsanaysaa ama u marinaysaa gabdhahaada markii uu noo soo qaboobayna sidan ayuu ku soo baxay oo isa soo wada dhaxgalay hadda wuu qaboobay kadibna maxaan rabnaa markii inaan qashinka ka saarno
qashinka ayaan ka saarayna sidaan lagu marsanayo markii aan qashinka ka saarno qashinkeeni aan gooni u tuurno intii aan rabnaa aan baxsano ayaan rabnaa inaan madaxa marsano baaquli yar ayaan soo qaatay kan shabaqa waxa lagu miira ayaan soo qaatay kadibna waan ku shubayaa oo waan ka shaqshaqayaa qashinkii ayaan ka shaqshaqayaa qashinka waa iska reebayaa maxaa la dhahaa faa'iidadana waan qaadanayaa qashinkana waa iska tuuraya haddii ay timaha ku dhibi jireen ee qayb hore markii aad madaxa isku xiratid horay tin ay kaaga soo hiri jirtay gadaal markii aad shalayneed shanlada ay kaaga hiri jirtay qaybta qoorta gadaaloo kaleeta ay kaa hiri jireen ee ka adkaayeen ama isku soo duubanayeen oo kale waxaa leedahay macsalaama si yar oo fudud adigoon jilciso marsanin adigoon kiimika marsanin haddii isbuuci mar ama laba mar aa isticmaashid natiijo ayaa gaari doontaa madaxaadan wuu isku diba dhacayaa madaxa gabdhahaada wuu isku diba dhacayaa yacni timihii markaa u tidacdo ama aa u samayso ama aa u hagaajiso timo taagtaagan oo kale taagtaagan oo soo qaar oo yacni kor usoo baxbaxsan makaa yeela doono insha allah haddana markii aan miiray qashinkii dhan aan ka miiray waa kaasa qashinka oo sidaas kusoo baxay maxaan u baahanahay waxaan u baahanahay weel aan ku shubano يعني باقولي ما هو ويل كانوا كله يعني عاجانو كلنت إن كشونا مرة والمركي أمضح أمرنينه وحال مر لمر صناينوا وحمال دقاي معها هذا أن سدح جبر أيار بقى أنا أقربي مرة والمركي أمرنيسيد وأذكر حساسي إسنسليد هال مر أيسن هال قف وضراعينه كلته مرة البوار حيسا مرة البوار حيسا همركا تيمه واقوانا مركا تيمه سوشن ليسيد وكلته تيمه مالك أرتيد إن أدقديد أي أمرنيسيد أسوق المركي شن لذا تيمه قيب الدم بإيكاج عليني haddii ay muxuu ahayn timaha ay ka guran yihiin oo kale waa ka faa'iideysanaysaa insha Allah marka waa soo qaadanaysaa alaabtii marka aad soo qaatid waa ruuxe mar walba waa kor iyo hoos ay ruuxay saliidii si ay u dhax gasho lama rabo inay saliida hal qof oo kaliya u raacdo waxa la rabaa kulli inay ku wada aado oo qof walba saliidina uu helo nafaqadina uu helo madaxa ayaa marinaysa waa ku masaaj gareynaysa si fiican ayaa ugu masaaj gareynaysa lafta ayaa ka marinaysa timaha meesha qaybta horeeto ee timaha xoogaa ay ka adag yihiin ama ka gaagay mar walba ay ka qalalaan ee saliid uga qalalaan oo kaleento ayaa u marinaysa maasha Allah si nafaqadooda u qaataan isbuucba wax mari maasha Allah oo hadana dabiici ah si mid waliba faa'iidadiisa uga qaato marka aad timaha sidaas oo kale taa u soo marisid maxay noqonayaan timihii timo xariir ah ilmaha markay madaxa u shaleynay sidoo kale ma dhibsanayaan ma nacayaan way ku raaxaysanayaan timihina waxay u noqonayaan timo jilicsan una baxo u dheedheeraado maasha Allah marka waxaan idin leeyahay hadii ay tahay markii ugu horeyso soo booqato channelka Karin Qurxin subscribe insha Allah beelka on ka dhiga koorta yar dhac ka si on ha ku noqdo like ta dhac u si insha Allah u si share garee asxaabtaada timo xariir hadii aad rabtid isticmaal alaabta waa mucjizada timaha insha Allah waxaan idinka tagay salaam